yahay Cornel Farxaan Maxamuud Siyaad Raamole soo dhawow marka hore xaaladda waxaad ka hadlaysaa Puntland iyo dhacdooyin ka dhacay gobolka Mudug oo taliyada degmada Jariban la dilay isna ninkii dilay loo toogtay bal marka hore soo dhawow maxamed waa maasanta walaal waa dhawahay waayahay xaaladii Puntland iyo tikadii iyo arrimahaas waan u soo laaban doonaa balse marka hore tacsida iyo arrimihii ka dhacay degmada Jariban aad ma santa maxamed tacsidii baan rabaa inaan dilo gaar ahaan waxaan tacsiyeenayaa inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun baan leeyahay taliye guuleed Cabdulqaadir Kaleeye Cali Guuleed iyo eheladiisiba u tacsiyeenayaa ilaahay jannada ka waraabiyo Allah u naxariisto waxaan kaloo u tacsiyeenayaa wiilka kale oo asagana la toogtay oo dilay ninkaas la yiraahdo Axmed Ibrahim Kooshin Cigaal labadoodaba ilaahay ha u naxariisto leeyahay waxaan uga tacsiyeenayaa dawladda Puntland gobolka Mudug beeshan ka soo jeedaan beelaha ilaahay ha u naxariisto leeyahay dawladana aad baan ugu mahadcelinayaa gaar ahaan gobolka Mudug iyo soo qabtay iyo qoladii ninkaas gacan gudhilaha oo dhintay qolada uu ka soo jeedo oo soo qabtay oo qoladii kale ku wareejiyay marka tacsidaas tiiraanyada ilaahayna ha u naxariisto leeyahay waayahay samri iimaan anagoo ilaahay naga siiyo waayahay dhacdadan waxaa la sheegay inay tahay dhacdada ugu dhaqsiyaha badnayd dhinaca cadaaladda geyga Soomaaliyeed laga sameeyay siiba gobolka Mudug 48 saac gudahood baa nin lagu dilay ninkii dilayna waa la dilay arrintaasi maxay ka dhigan tahay wallahi waxay ka dhigan tahay maxamed aad u mahadsan tahay cadaalad bay ka dhigan tahay qolay soo qabatana saa sheegay waa u mahadcelinayaa in lagu daydo wax lagu daydo oo tusaale mudan bay ka dhigan tahay qof walba oo isku daya inuu cararo ama gobolka Mudug ilaa dacalka ugu sheeyay garaacad iyo dhinoodo iyo saaxo oo isku daya inuu cadaalad ka baxsado saas oo kala tiirka loo geenayaa waana cadaalad waana garanaysaa waa shariicadu waxay sheegaysaa qofkii qof dilo in la dilo dadka kalena inay ku daydaan oo gobolada kale Puntland iyo Soomaaliya oo dhan qofkii qof dila oo gardaro ku dila saas oo kale inta loo soo qabto tiirka in loo taago si fidmadu u yaraato waayahay xaaladda Puntland dhinaceeda kale ayaan u soo laabanaynaa maalmahan warar baa sheegay in tikadii xirnayd sidoo kale ganacsiyada ay ka cabanayaan canshuur kordhin bal arrimahaasi maxaa kala socotaa maxamed aad iyo aad baa u mahadsan tahay arrimaha waxaan kala socdaa ilaa tikadii iyo ganacsigu waa xiran yahay ilaa muddo 14 beri meelahaas u maleynayaa marka dee wax dawladda xaggeeda ka yimidna maahan qolada ganacsatada oo lagu adeeganayo oo madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday oo ku adeeganayo iyo qoladii argagixisada laga adkaaday oo buuraha ay ku adeeganayaan baa maxamed oo ka dambeeya inay ganacsiga xiraan canshuurtana weydiiday in canshuurta bixiyaan leeyahay canshuurta dalka ku kala soconaya idinka wax lagu qabanayaa laakiin wax dawladda ka yimid maahan maamulka gobolka bari iyo maaragtay galaadeeyanka wax ka yimid maahane waa wax ka yimid nimanka ganacsatada oo diidan canshuurta marka waxaan leeyahay dawladda iyo maaragtay maamulka gobolka bari in tikada iyo ganacsiga si dhaqsala loo furo sababtoo haddii kale sicir barar baa dhacay oo raashinkii hadda waa qaaliyoobay baa la yidhi shidaalkii waa qaaliyo wax walba waa qaaliyoobayaan marka canshuurtana bixiyaan leeyahay awalba markii argagixisadu joogtay oo baad baad bixin jirteen oo baad baad siin jirteen marka maxaa hadda u diidaysaan canshuurta inaad dawladda siisaan oo dawladda waxbaa lagu qabanaya dadka wax lagu qabanaya midda kale deelis afkarta weeyo sidaa sheegay laakiin wax dawladda xaggeeda ka yimid maahan maxamed waayahay arrimo kale oo soo cusboonada jirtay xildhibaan Fahimo Quuce oo markaasi ahayd xildhibaanada waqooyi bari xilkii way iska casisay waxayna u ruqaansatay dhinaca Somaliland arrintaasi waa la socotay aan filayaa bal aragtida ku aadan arrintaas ay u dhacday Fahimo Quuce maxaa ka leedahay arrintaas maxamed waa maqlay inay iska casisay haddii kale awalba waxa weeye dawlad wax waqtigooda dhamaaday bay ahaayeen haddii hadda isbedeshay xagga aadan dee waxa ay soo siyaadinaysa ma laha waxay soo kordhinaysa awalba dee waxa lagu sheegay waqooyi bari dee wax jira maahan wax gacan ku rimisa oo xasan doorshaan oo rabay inuu Puntland ku carqaladeeyo ahaa maamulkaasi dee wax jiraba maaha marka waxaa la yidhahdaa magaciisa waa maamulkii hore SCC weeye
waqooyi bari wax la yidhahdana maba jiraan marka de waxaan leeyahay waa waxaan wajahad lahayn oo wajahad lahayn oo hadaf lahayn oo haba meel u ordaayo qofkuna hadduusan hadaf lahayn waa dhumaa waayahay maxay ka dhigan tahay marka arrintan ma kula tahay waqooyi bari burburkeedii la gaaray oo inta ku hartay halkaasna puntland ama somaliland ay iska dhiibi doonaan mar kale ها محمد وعاد بقى ما سنتهي سؤال في عن ويه انت كو هرتي دي اول ماشي وحبكم ما يعني wax macnaha ma arkin awal cadaawad ugu sameeyay buu ahayo Puntland lagu carqaladeynay marka hal inta ku hartana Puntland waa reer Puntland way gobolka Sool Puntland buu kamid yahay sharci ahaan dastuur ahaan gobolka Sool iyo gobolka Cayn iyo kulli nimanka hadda sheegay waqooyi bari wax lama jiraan waa Puntland bay kamid yihiin dawladda Puntland bay ka tirsan tahay marka hal inta meesha joogtana iska yimaadeen oo de Puntland ay yimaadeen baa leeyahay aad iyo aad ma santahay Cornel Farxaan Maxamuud Siyaad Raamole ayuu kaasi ahaa oo soo kusoo dalka Mareykanka khadka taleefanka igu waramay Cornel aad ma santahay kaamal celinayna adaamudu walaal adaamudu